الفدي أنا عادي هين oo golaha deegaanka ee degmada Boorama ay maanta yeesheen ayaa waxa lagu dooranayay maayir cusub oo degmada Boorama ay yeelato markii koolamku uu ku buuxsamay 20 xildhibaan halka hal xildhibaan uu ka maqan yahay ayaa waxa halkaasi tanaasulid kaga dhawaaqay maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydane waxaana uu sheegay kadib markii moran badani uu soo kala dhaxgalay xildhibaanada golaha deegaanka mudana ay hawshaasi soo markuu qiimeeyay waftiga ergada ahaa ee ka kooban wasiirada isla markaasina uu qiimeyn ku sameeyay warqadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka soo baxday ayaa waxaan u arkay buu yiri inaan xilkaasi ka tanaasulo anigoo eegaya buu yiri dhinaca horumarka iyo waxqabadka degmada Boorama markaan iyaga kulannay أنا سقنعني أنت لا يسوي درسني أن كن قنعي قان كمدحوينه وحن قرتينا الأسل تناسله دنتا قرنكا أو جوهر سدنت دقمة بورما وحن الصعاد على قبل أبو حلكيان دقمة وهي وتناسلي دنت دقمة يهرو مركيجا يطلع kadib waxa la gudagalay codayntii maayirada degmada Boorama oo ay isku soo sharaxeen Maxamed Maxamuud Dheerayste iyo Saleebaan Xasan Xadi oo iyagu hore u ahaan jiray maayirka degmada Boorama iyo ku xigeenkiisa waxaana Maxamed Maxamuud Dheerayste uu helay 9 xubnood oo xildhibaanada golaha deegaanka codkoodii halka Saleebaan Xasan Xadi oo isna helay 10 xubnood sidaasi maayir cusub loogu ansixiyay Saleebaan Xasan Xadi oo noqonaya maayirka degmada Boorama goliyalka fadhiyay 20 qof buu ahaa 10 qof waxay u codeeyeen Saleebaan Xasan Xadi 9 waxay u codeeyeen Maxamed Faarax Dheerayste gudoomiyuhuna muu codeynin oo hadii la kala badi waayo uu cod leeyahay waa sida baarlamaanka oo kale oo aniga marka sida darteed anigu maan codeynin sida darteed guusha waxay raacday Saleebaan Xasan Xadi sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay maayirka cusub ee degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo ballan qaaday inuu halkaasi ka sii amba qaadi doono horumarka degmada Boorama ilaahay ma hadii weey waxaan reer Boorama ugu bishaareynayaa in wixii hore Saleebaan kulley wajibaad ku barateen berigii hore weji cusub anigoo intii ka weynaaday inaad igala kulmi doontaan Ilaahay dhaaf aad iyo aad noo mahadsanid barasaabka gobolka Awdal ayaa isaguna waxa uu tilmaamay waxaan uga mahadcelinayaa maayirkii hore sida fiican ee arinta u soo koobay waan uga mahadcelinayaa koow marka labaad waxaan u hambalyeeynayaa maayirka cusub ee soo baxay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa isaguna waxa uu tibaaxay aad iyo aad ugu mahadsan yahay sidaas ay hawshii noogu gabagabowday waxaan idin leeyahay guul inaad u shaqaysaan degmadii la idin magacaabay ayaa la idinka sugayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa iyaguna goobjoog ka ahaa munaasabadaasi lagu dooranayay maayirka cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama wasiirka wasaaradda ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha barasaab ku xigeenka gobolka Awdal xogayaha dawladda hoose Xasan Yuusuf Riiraash iyo dadweynaha aad u tiro badan oo iyagu soo dhaweeyay doorashada munaasabadaasi waa Caafi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama